socdaalka gobolka ayaa soo qabtay ajaanib sharci darro ku soo galay dalka Soomaaliland. Xarunta ciidanka socdaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Haw oo si hufan ugu guda jiray waajibaadka maalinlaha ah ayaa maanta gacanta ku soo dhigtay dad ajaanib ah oo u dhashay dalka Soomaaliya, kuwaas oo si sharci darro ah ku soo galay gudaha Soomaaliya. Taliyaha ciidanka socdaalka gobolka Haw Axmed Yaasiin Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka, isagoo oo sheegay in dadkaasi ay dalka ka soo galeen dhanka dalka aynu jaarka nahay Itoobiya. Taliyuhu wuxuu intaasi ku daray in weli ay socdaan baaritaano ku saabsan ujeedada iyo xaaladaha rasmiga ee ku soo galeen dalka. Sidoo kale Taliya Axmed Yaasiin Maxamed ayaa waxa uu tilmaamay in ciidanka socdaalku ay muddadii u dambeysay ku jireen heegan sare, isla markaasina ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa la xiriira isku socodka dadka iyo sohodimaha si loo xoojiyo amniga sharciyada gelitaanka dalka Soomaaliland. Dhanka kale howlgalkan ayaa ku yimid iskaashi iyo gacansiin dhow oo ay wadaagaan ciidamada booliiska ee gobolkaasi Haw, kuwaas oo si wada jira uga shaqeeya sugidda amniga iyo xasiloonida gobolka. Cabdiraxmaan Samriye, Telefishinka Qaranka Soomaaliland ee gobolkaasi Haw.